munaasabadana lagu qabtay magaalada Fiqi-Fuliye ee koonfurta gobolka Sanaag ayaa waxaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyay 25 arday oo barashada Quraanka ku dhameystay madrasada Al-Nuur ee degmada Fiqi-Fuliye waxaana munaasabadan ay ka soo qayb galeen waalidiinta ardayda waayeel iyo waxgarad kale culimada diin haween aqoon-yahan dhalinyaro iyo marti sharaf kale oo badan baa ugu horeyn hadal kooban oo ku saabsan ujeedada munaasabadan halkaasi ka soo jeediyay Kaysa Cabdi Cali Qodax oo kamid ah maamulka macahadkan waa xaflad lagu maamuusayo ardayda wax ka baratay ee ka dhameysay Quraanka Kariimka madrasada Al-Nuur ee ku taala isla degmada Fiqi-Fuliye ardaydaas oo tiradoodu ka kooban tahay 25 arday oo isugu jira inamo iyo habloba xubnihii kale halkaasi ka hadlay oo isugu jiray waalidiinta ardayda iyo waxgaradka kale culimada diinka aqoon-yahanka iyo dhalinyarada ayaa iyagana waxa hadaladoodii ka mid ahaa ardaydaas talaabadii koowaad bay qaadeen ilaahay kitaabkiisa way xafideen maartay laftigiisii waan bilowga ay bilaabeen runtii ay soo qaadeen in hawshii dhameeyeen hadday markaa cagta saareen yani wadadii maartay cagta saareen مسؤوليتهم بفوشي وحاول هذا مركب معنيه القرآن كأنه ما يبرتان waxyaalaha yaab kale waxaan ka mid runtii aan jeclahay munaasabadena uga faa'iideysto caruurta oo inoogu dambeeyay oo badankooda aan qaangaar bahayn ayaa quraanka dhigta dadka waaweyn waxaad moodaa ka horumareen waana mushkiladda ina haysata waxaan leeyahay quraanka hala dhigo waxaan leeyahay waalidiinta magaalada juhdi baa bixiseen maadaama ardayda la soo baxdeen dadaalkii iyo maxaan ku dhahdaa in ardayda keentaan ka sii badiya waxaan idinku tahniyadeynaynaa qalin jabinta qiimaha badan lana socda walaalayaal quraanka lagama qalin jabiyo dadku hadda waxay ku dadaalaan kaliya inaynu xiftino xifdiga kaliya waxaa ka wanaagsan camalka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa macallimiinta ardayda wax bartay oo hirgelisay in maanta munaasabada la isugu yimaado waxaan leena ka rabaa dadaalka inaynu halkaa ka sii wadno aynan isolan waa hawshii waad ku guulaysateen waa dhamayseen ardayduna sidii culimadu ay idin sheegtay xil baad qaadeen mas'uuliyad baa idin fuushay waxa la rabaa inaad mas'uuliyadda aad adkaysaan waxaan leeyahay ilaahay baa mahadle munaasabada wadaadada iyo waxa cirgaabo ilaahay nooga yihiin waa mahadsan yihiin yararka quraanka dhameeyayna waa mahadsan yihiin waalidiinta ka soo shaqaysay sida arrintaa u sheegaysatayna waa mahadsan yihiin waxaan ku soo gabagabaynayaa hooyadu qiimaha ay leedahay markay wax taqaano ninbaa waxa la geeyay maxaa inan yar ayaa waxa la geeyay maxaa iskuulkii markii la geeyay uu muddo iskuulkii joogay ayaa iskuulkii laga soo eriyay dabadeedna warqad buu soo dhiibay maxay ahayd ninkii maamulaha iskuulka ka ahaa wuxuu yiri ku soo qoray warqadii inankaagu maskaxdu waxa weeyaan way fadhidaa meeshana looguma talagelin cid maskaxdu fadhido maxay ahayd in dadka la soo dhex fadhiisiyo guriga ku joogo wax laalo wuxuu baranayaa ma jirto maxaa dhacay hooyadii way fakartay ilmaheeda mustaqbalkeedu way ka fakartay waxbay bartay iyadaa qalinka u qabatay gurigay wax ugu dhigtay waa ninka waxa weeyaan leyrkan aynu ifsanayno iyo waa ninka sameeyey ee keena fakarkiisa ninka halkaa marayay hooyadiisaa gaarsiisay intaasi kadibna waxaa halkaasi shahaadooyinkii aqooneed iyo abaalmarinihii kale ay mutaysteen lagu guddoonsiiyey ardaydii ka qalin jabisay barashada quraanka ee macahadkan Al-Nuur gabagabadana waxaa shahaadooyin sharafeed iyagana la guddoonsiiyey Sheekh Cabdullaahi Xuseen Isxaaq iyo Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Xasan oo ka mid ah macallimiinta ardaydana quraanka ka barteen waxaana xusid mudan in muddadii xafladani socotay qaar ka mid ah ardaydaas ay halkaasi ku soo bandhigeen aqoonta quraanka kariimka ay dhameysteen Cabdullaahi Xuseen Darwish shabakada caalamiga ee News magaalada Ceerigaabo